maxay sababta dadka qaar ay ugu guuleystaan in body fat percentage-ka jirkooda ay boqolkiiba 10 gaarsiiyaan dabcan inay arkaan ayagoo liin noqday jirkoodana uu six pack-gooda wax cadceed ah aysan ku jirin oo caadi loo arki karaayo sidee awood ugu yeelan kartaa inaad boqolkiiba 30 intaad ka soo dejiso body fat percentage-kaaga ilaa iyo heer boqolkiiba 10 aad soo gaarsiiso sidee kugu fududaan karaysaa assalaamu calaykum waxaan maanta la hadlayaa qofka rabo inuu jirkiisa isbeddel wanaagsan uu galo waliba isbeddel u waari kara oo aanan noqonin waxaan ay dhahaan yo-yo dieting inaad berina miisaankaagu uu soo kordho maalinka ku xigana uu miisaanka kaa dhaco 30 sidee uga soo tegi karaa oo aan hoos u imaan karaa oo body fat percentage-kayga aan hoos ugu soo dhigi karaa dabcan waa waxa aan rabnay inaan maanta isla falanqeyno gaar ahaanna haddii aad 30 jir ka weyn tahay hal shay oo aan raba ayaa jira inaan kula qaybsado ka hor intaan wax kale kuu sheegin jimicsigaad samayn lahayd cuntada aad cuni lahayd exercise-ka meeshaad ka bilaabi lahayd sidee kaloriskayga u xisaabiyaa diyaargarowga aan ku bilaawno ma taha qof sabiran karo qofka uu rabo inuu noqdo tusaale ahaan haddii maanta 200 kiilo ay ku saaran tahay ma arki kartaa qofkaad adigu tahay oo 60 kiilo ah ama 75 kiilo ah jirkana dhistay jir qurux badan leh laakiin haddii uu qofka ku sabiran yahay aad laadahay wada aad u marto don't worry ana wadada maanta ku jeexay warqadii qalin soo qaado waxaad qortaa 5 shay oo keeni karaysa in body fat-kaaga aad 30 ka soo kaxayso oo aad ilaa 10 keento maxaa kugu qasbi kara laga yaabo in miisaanka aad dhibsatay laga yaabo inuu ku fool xumeeyay laga yaabo inuu jirka kaaga ciyaaray waxay ka caawinaysaa mar walba oo macaanka ama cuntooyinka aadan iska celi karin dhankooda aad aado inuu qoraalkan ku soo xasuusiyo wixii aad bilowday weli inaad dhexda kaga jirto xisaabinta calorieska haddii aad rabto number cayiman inaad gaarto sida 10% body fat waad ku qasban tahay in kalorigaaga aad xisaabiso soo qaada marka miisaankaaga waad iscabirtay miisaankaaga waxaad ku dhufataa 29 anigu tusaale ahaan aan isku soo qaato 85 kiilaan ah 29 markaan ku dhufto waxaa ii soo baxayso 2465 waa calorie maintenance-geyga waa inta maalinkii jirkayga uu u baahan yahay haddii 2465 calorie aan cuno miisaanna iguma darsoomaayo miisaanna igama dhacayo xisaabtaana aysan kaa lumin adigu miisaankaaga cabiro keyga waxbaha ku mashquulin haddaad 70 kiilo tahay 29 ku dhufo haddaad 80 kiilo tahay 29 ku dhufo kadib waxaa kuu soo baxaysa calorie maintenance-ga cuntada lagugu talagalay si maalinla ah in aad noolaato jirkaaga uu u baahan yahay hadda waxaan u gudbaynaa marka deficit aan sameynaynaa deficitku waa in wixii aan miisaanka ku rideynay aan meesha keennaa deficitku lababa waa awoodaa 500 calories 2465 aad heshay markaad 29 ku dhufatay miisaankaaga 500 ka jar 500 haddii aad ka jarto wixii kuu soo baxo maalin walba haddaa cunto isbuuci waxaa ku xisaabtamaysaa nus kiilo ilaa 1 kiilo inay kaa dhacdo laakiin si aan meel fog u gaarno 750 ka jar beddelka 500 750 waxaad ka jartaa numberkii aad heshay aniga tusaale ahaan 2465 haystay maintenance-geyga markaan 750 ka jaray waxaa ii soo baxday 1715 haddii aan marka 1715 maalin walba aan cuno oo calories waxaan helaa 30% body fat-kayga taagan in uu hal bil ku yimaado 27 saddexa iga dhacayso percentage bil walbo haddaan si toos aan 1715 aan ku socdo bisha labaad 23 imaana bisha saddexaadna 17 imaana waxaa ogaataa mar haddii nin raga aad tahay oo body fat-kaaga uu ka soo hoos maro 20ka 6 pack-ga labada ugu korayso banaankay taala haddii aad dumar tahay oo 25 uu ka soo hoos maro body fat-kaagana jir liin oo qurux badan ku soo baxayo anana ku sheegay insha Allah taala waxaad sameynaysid wadan hadda marka deficit-ka haysana waxaan rabaa marka inaan u bedelno cunto inaan u bedelno proteins carbohydrate iyo fat weligaa markaad cunto rabto inaad xisaabsato laba shay xooga saar hal shayna meel dhigo
markii wax ay kuu soo haraan ku buuxi labada shay aa xoogga saaraysid waa proteinka jirkaaga u baahan yahay iyo faatka jirkaaga u baahan yahay laakiin carbohydrate-ka asiga baakin dhigo wixii labadan ka soo haro booskooda ku buuxso proteinkaaga sidee u heli kartaa I wish inaad nambarada xifdisay ee meel kuugu qoran yihiin proteinkaaga waxaad ku heli kartaa meeqa kiilaa hadda tahay inta kiilaa hadda tahay 1 gram ku dhufso proteinka jirkaaga maalin walba uu u baahan yahay ku soo baxayo haddaad 90 kiilo tahay 1 gram ku dhufo 90 aa u baahan tahay laakiin mar walba proteinkayga kor uu u kaco carbohydrate-kayga waa inuu hoos u dhacaa calorieska aan u baahanahayna uusan ka dhex bixin 1715 calories si aan u dhumiyo 3% oo body fat ah bil walba faatkan ku xijinayna marka qiyaas ka qaado faatku la iskuma wareeriyo lamaba xisaabo anigu client-gayga qiyaas ahaan waxaan siiyaa 50 gram ilaa 40 gram faat u dhaxeeya dhalinyarada inta badan faat marka loo sheego waxay ku cararaan avocado loos saliid maya faatku meelo badan oo ku jira hilibka aad cunaysid nooc walba faada ku jiro waa inaa ogaataa faadka hilibkaas ka soo galayo hadhowna 50 gram xisaabteeda uu soo galaa hadda marka waxaan ku hayaa ina proteinkii aan ka dhiganay 85 gram oo protein ah iyo 50 gram oo fat ah waxaa noo soo haray waa carbohydrate-ka carbohydrate-ku halkiisa gram wuxuu xambaarsan yahay 4 calories faatka halkiisa gram wuxuu xambaarsan yahay 4 calories isku keen haddii 10 gram oo fat ah aa cunto waxaa kugu baxday 90 calories haddii 10 gram oo carbohydrate ah ama protein kugu baxdana waxaa kugu baxday 40 calories mar walbo faatka waa 9 calories proteinki carbohydrate-kuna waa 4 calories 85 marka waxaa ku dhufataa 4 waxaa ku soo baxayso 320 calories meeshaas waxaa ku haysataa proteinkaaga intuu calories yahay meel ku qoro faatka waa 50 9 ku dhufo 450 calories faatkaagana meeqa waaye waa 450 calories asna meel dhigo waxaa haysanaa marka 340 calories oo protein ah iyo 450 calories oo fat ah waxaa ka jaraysaa marka calorieski dhamaa ee totalka ahaa ee jirkaaga galayay waa 1715 aniga keyga xisaabsanooya adiga inaa kaaga xisaabsanaysaan ku rajeynaa marka kala jarto waxa soo baxayso 1715 calories waxa ka jirtaa 340 calories oo protein ah wixii ku soo baxo waxa ka jirtaa hadana 450 calories oo fat ah 920 calories meeshaas ku harayso 920 calories waxba isku wareerinin waa carbohydrate-ka aad cunaysid meeshaan maxaa ku haysataa 340 calories oo protein ah 450 calories oo fat ah iyo 920 calories oo carbohydrate ah wabillahi tawfiiq cuntada gacanta ku haysataa jimicsiga hadaa rabtid inaad fat rido waxaad isku daydaa in aad socodka culeyska saarto 10000 steps isku day maalin walba inaad samaysid wiiga koowaad wiiga labaad 11000 steps ka dhigo wiiga saddexaadna 12000 ka dhig steebyada aad samaynayso wiligaa waxaa isku daydaa inaysan xawaare ka noqonin zone 2 cardio zone 2 cardio waxa waaye wadnahaaga waxaa la rabaa markaad socodkan aad samaynaysid inuusan wax neeftuura samaynin inuusan daaleynin hadduu mar neeftuur galo amaba socodka uu socdo wax yar uu xawaareeyo xawaarahaas wuxuu keenaa jirkaaga automatically inuu ka baxo inuu gubo sokorta faatkan uu u gudbo labo waxaa xoogga saaraysaa 3 beri oo aad murqaha dhisanaysid jimka haddaadan waqti u heenin 3 beri raadi 40 daqiiqo dhex joog murqahaaga dhis waxaa ogaataa markaad muruqa dhisaysid kaliya faatka jimka gudihiisa kuma gubaysid ee gurigaaga marka aad imaato murqihii aad soo dhistay damage baad soo gaarsiisay damage-ka marka in la dhayo darteeda waxay keenaysaa in jirkaaga uu maalinkii oo dhan xitaa habeenkii marka aad jiiftid uu calories soo deensado kadibna murqaha lagu dhayo taas waxay keenaysaa in murqahaaga dhayidaas la dhayaayo oo maanta oo dhan jirkaaga calories gubo calorieskaas asaas ku gubaysaa jirkana wuu ku dhismaa aalamitoyinka full body training full body maxaa la dhahaa jirku marka la aalamiteynaayo ama strength training la samaynayo waxaa loo qaybiyaa murqo tusaale ahaan xabadka garbaha
gacnaha muruqa qaybta hore bicepka loo yaqaano, qaybta dambe tricepka la dhaho, lugaha iyo dhabarka. Isku day marka adigu maalin walba 3 beri in aad full body-ga samayso oo muruqihii dhammaan aad train garayso. taa markay kuu suurta gasho oo intaas aad samaysid waxaad samaynaysaa oo culayska saaraysaa waxa la dhaho the big 6. The big 6 ku waxa waaye kow bench presska muhiim waaye. waxay dhahaan compound exercises. Compound exercises-aduna waa hal exercise oo dhowr muruq target gareynaya. The big 6 ku bench presska ugu horeeya, waxa ku xiga overhead presska, ku xiga almitada shoulderka, waxa ku xigta papel bag row, rowing-kan bag lagu sameeyo ee papelka birta dheer lagu sameeyaa ku xiga, squat-ka soo galaya, deadlift-ga ku jiro, number 6 na waa pull ups-ka. lixdaas waxaa la rabaa marka in aad 3 beri hal maalin ma wada sameynaysid, laakiin inaad 3 beri laba xabo ay maalinkii ay ku dhex jirto. taasa marka waxay ka caawinaysaa inuu murqahaaga ku dhismo. qodobka ugu dambeeyana hurdada. waxaad ogaataan hurdadu waa waxa ugu muhiimsan ee wax ka bedeli karo. inaad 9 ilaa 7 saacadood oo hurda habeenkii hesho wax oo gorgortan ah kuma jirto. hal midna yeesan ka hoos bixin. waxaa jira qodob la dhaho 10 3 2 1. isku day 10 saacadood ka hor inta aadan seexanin kafeega cabitaankiisa inaad joojisid. 3 saacadood ka hor inaad cuntadoo dhan aad ka tagto. 2 saacadood ka horna in aadan wax jimicsi aadan sameynin, because of jimicsiga hurdada u dhow. inta badan qofku daal badan ku abuuraa, daalka badanna hurdadu la tagaa. kama dambeynna 1 saac ka hor shaashadaha ka fogow. hadduu mobile noqon lahaa, hadduu TV noqon lahaa, hadduu wax kale noqon lahaa. kama dambeyn marka haddii aad 30 jir tahay, waa tii aan ku dhahay, waxaan rabaa inaan talo yar kugu darsado. isku day maadaama hormoonaadka jirkaaga da'dan markaad soo gasho isbebedelkooda uu badan yahay, in aad raadsato qof professional ah, coach aad isfahmaysaan oo aad wax ka dhaadhicin karo, sidoo kaleetana marka aad barnaamijka ku wareerto ku sixi kara. intaas rabo inaan kula qaybsado. haddii barnaamijkan sida ani hadda aan kugu sheegay aad u qaadato, i aamin 30% body fat-kaaga 3 bil kadib 15 ilaa 17 imaanaysaa. 6 bil kadibna 10% ku waad soo taabanaysaa. kaliya waxaan idinka codsanaynaa insha Allah tacaala inaad channelka subscribe tiraadaan. walaalka ku safriye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.